طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. kusoo dhawaada daawadayaal barnaamijkeeni afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha. barnaamijkan oo aynu mar walba aynu kusoo qaadano xalaqo aan uga hadlayno juz ka mid ah ajzaada qur-aanka kariimka ah iyo macaanida waaweyn ee uu xambaarsan yahay, oo aan isku dayno muddo 10 daqiiqo ah in aan kusoo koobno si qofka muslimka ay rabaa inuu juzka akhriyo oo uga qaato macno guud. dhowr jeerna waxaan ku celcelinay in 10 daqiiqo hadalka aan sheegi doono uusan qofka ka deeqayn ee loo baahan yahay qofku inuu noqdo kutubta tafsiirka qur-aanka kariimka. qofka mu'minkaana loo baahan yahay kitaabka ilaahay markuu akhrinayo inuu dhuuxo macaanida uu xambaarsan yahay ee uusan ku marin si maaragtay degdega uusan ku marin. maanta xalaqadan waxay ku saabsan tahay juska 11 ee qur-aanka kariimka ah. juska wuxuu ka bilowdaa aayadda 93 ee suuratu at-tawbah iyo suuratu yunus, nabilaha yunus suurada lagu magacaabo nabilaha yunus calayhi salaam dhammaanteed, iyo 5 aayadood oo fi awali suuratu hud ah. intaas jusku ku eegaya juska 11aad. mawaadiic badan bay ka hadleen runtii oo aan 10 daqiiqo iyo wax lamid aan lagu soo koobi karin. suuratu tawbah oo iyadu qaybta hore juska kamid ah waxay ka hadashay sifaadka dadka munaafiqiinta ah, kuwaasoo jihaadkii ka haray oo nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabada aad u lugooyay, siba kuwii qaswada tabuk ka haray ayaa juska 11aad lagu sheegay qaybta suurat tawbah kamid ah. waxa lagu sheegay sifaadka dadka mu'miniinta kuwaas oo naftooda ilaahay ka iibiyay subhanahu wa ta'ala oo u huray naftooda fi sabilillah. sifooyinka ay leeyihiin ilaahay wuxuu u diyaariyay ayaa lagu sheegay. waxa lagu sheegay qisadii 3 saxaabi caan ku noqday maaragtay ala 3 alladina khulifu. 3 saxaabi runtii dhibta badan u soo gaaray oo ilaahay dartiis uga maaragtay inta u toobad keenay ilaahayna toobadoodii u aqbalay iyagoo aan munaafiqiinta ahayn laakiin jihaadka uga haray cudurdaar sharci oo ay lahaayeen, kadibna ilaahay toobadoodii aqbalay ayaa lagu sheegay. suuratu yunus oo juska kamid ah dhammaanteed waxa ay qariraysaa oo aad ay dhidbaha ugu aasaysaa caqiidada muslimka, qofka muslimka, khaasatan al-iimaanu bir-risalaat, risaalooyinka ilaahay soo diray in la rumeeyo, la fahmana wixii rususha ilaahay ula soo diray oo ahayd cibaadada ilaahay subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lah. waxay aad uga jawaabaysaa shubahaadka ay gaalada iyo mushrikiintu ay caqiidada islaamka ay ku duraan, baa la radinayaa, madaxa laga garaacaya, si fiican looga jawaabayaa. haddaan markaan usoo noqono suuratu tawbah, runtii aakhirkeeda aayad ilaahay uu ku sheegay subhanahu wa ta'ala calaaqada qofka dadka iyo qur-aanka dhaxaysa. aayadaas in la dul istaaga ayay mudan tahay oo qofku maaragtay si uu noqon kuwa khaasiriinta ah. abrasu almawduucaat oo juska uu ka hadlay waxyaalaha ugu muhiimsan ama canaasirta ugu muhiimsan ee juska 11aad uu ka hadlay runtii 10 daqiiqo laguma soo koobi karo, laakiin waxaan ula jeednaa lafta يعني soo jeedin qofka muslimka lagu soo jeediyo si uu kitaabka ilaahay subhanahu wa ta'ala uu markuu akhrinayo uusan sariic u marin isdul taago. macaaniduna aad bay u badan yihiin runtii. mawaadiicda ugu muhiimsan saan hore usoo sheegnay suuratu tawbah ay ka hadlayso dadkiiba waxa loo qaybshay tawaa'if, qaybo dadka nabiga ku hareeraysan, kuwa mu'miniin ah, kuwa munaafiqiin ah, kuwa ahlu kitaab ah, kuwa mushrikiin ah, dadkii ahlu acdaarta ahaa ee cudurka lahaa ilaahay cudurkooda aqbalay, kuwa aan cudurka lahayn oo cudur darrada uga haray jihaadka iyo dariiqa ilaahay. waxay suurat tawbah ka hadashay qaybta juska 11aad ah masjid loo oran jiray masjid Tiraab oo maaragtay loo aasaasay qasdigii iyo niyaddii loo aasaasay ilaahay dartiis aan loo dhisin. lam yu'assas li taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, inama usisa waxa loo aasaasay muslimiintu loogu dhibo.
halkaana waxaad ka fahmaysaa oo runtii nabigana waxaa la amray inuusan masjidkaa tegin una kuna tukan waa laga reebay inuu ku tukado sallallahu alayhi wasallam waxaana la yiri waxa ku haboon inay istaagtiin masjidka ilaahay dartiisa loo dhisay oo masjidka nabiga sallallahu alayhi wasallam halka waxaana lagu tanbiihinayaa meesha aakibka meesha maaragtay gunuda muhiimka ah waa qalbiga way amal kasto la sameeyo waxa aakibka ah qalbiga kana waa masjid kana waa masjid kana taqwada ilaahay baa lagu asaasay iyo ilaahay dartiis kana waxa lagu asaasay niyadu waxay ahayd xumaan iyo in muslimiinta lagu dhibo marka kullama qasdigu uu faasid yahay cibaadada la sameeyo faasid bay noqonaysaa waxa kale maaragtay lagu sheegay suuratu yunus tusaale cajiib ah tusaale ayuu ilaahay miisaal buu ilaahay soo qaatay adduunyadiiba waxa laga dhigay kama in anzalnahu min as-samaa si biyo samada ka soo degay oo fakhtalada bihi nabatu al-ardi mimma ya'kulu an-nas wal-an'am ayadaas in si fiican loogu tanabbu sida ilaahay suurada sahalka ee adduunyada nala ku siinayo roob daay oo naq soo saar naqi maalmo kadib uu qalalay marka aayadahaas oo kale in la dul taago oo la fahmo ayaa wanaagsan ilaahay subhanahu wa ta'ala suuratu yunus wuxuu noogu sheegay ilaahay qowlkiisa ilaahay yiri lil ladina ahsanu al-husna wa ziyada ziyadadaas lil ladina ahsanu al-husna culumada waxay fasireen waa jannada ziyadadaasna waxa weeye inay ilaahay arki doonaan kuwa muuminiinta maalinta qiyaame maarag jannada ay ku arki doonaan ziyadada ay helayaan ilaahay iyo waahana ay taas ay tahay aayadaas in lagu iyadan lagu dul istaaga ay mudan tahay suuratu yunus waxa si faahfaahsan loogu sheegay qisadii qowm yunus suuradana yunus waxa loogu magacaabay qisadii nabi ilaahay yunus iyo qoomkiisa ayaa aad u muuqata qofka muslimkaana inuu isdul istaago qisadaas baa loo baahan yahay iyo cibarka iyo casharada ku jira suuradu waxay sheegtay ilaahay qowlkiisa subhanahu wa ta'ala aayada 62 iyo 63 64 ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahum al-bushra fi al-hayati ad-dunya wa fi al-akhirah la tabdila li kalimati allahi dhalika huwa al-fawz al-'azim afdalu al-maqamat sida culimadu ay sheegeen boosaska ugu sareeyo u wanaagsan waa inuu adoonku noqdo wali min awliya ilaahi subhanahu wa ta'ala laakiin wilaayadaas see lagu gaara yaase wali ah awliya allah waa kuwa ilaahay waliga ka dhigta oo ilaahay ku tiirsanaado oo see uga dhigtaan ilaahay bay adeecaan alladina yatawallawnahu bit-ta'a kuwaas way ilaahayna marka isna karaama ayuu siiyaa subhanahu wa ta'ala marka ilaahay baa fasiray awliya allah man hum hadiliya yaa weeye cid walba isaysan u sheegan ilaahay baa fasiray wuxuu yiri ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إله وقوي أولياء هذا كوا أن مرجون دوني أنا بقي دوني الذين آمنوا وكانوا يتقون وقوي إله رمي وإله كعب وإله أطيعه كواس تولي إله أي تولي أي ولي كدكتين وإله أطيعين أي إله وحو أبا الجودي لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة سيدا استرادين أي قف كستا أو شيكته إنه وليه isagoo oo ka dharla taacada ilaahay iyo kitaabka ilaahay sunnada nabiga inuu ku toosnaa isagoo ka dharla waxa uu noqonayaa sifaadkaas hadii laga waayo wuxuu noqonayaa mid been ay tahay wilaayada uu sheeganayo qofka waliga ilaahay subhanahu wa ta'ala waa midka ilaahay ateeca waa midka dadka diinta ilaahay ugu yeera waa midka kitaabka ilaahay ku dhaqma waa midka salaada maaragtay ooga hada huwa waliyullahi alhaqiqi kaasa ama qofku inuu iska sheegto wali baan ahay oo maaragtay salaadii tukan ma xaramka ku soo tukadaa ama ilaahay baan caasiyaya oo maaragtay waxyaala ilaahay usan amrin oo bid'a ama rasuulkiisa usan sameyn ayaan sameynaya haduu yiraahdo taas waxay noqonaysaa maaragtay iddia kaadib ay noqonaysaa marka walaalayaal juska 11 oo aynu niri waxa uu ka bilaabmaya maaragtay aayada 93 ee suuratu tawba وهي سورة يونس أيضاً يشنت آيات أخرى سورة الهود عليه السلام مواضيع ذو وين حنبارسان آيين وحنكسو كوبي كرنا ما دام أنت منطقة وترى كرنا برنامجك إنتاس أيام كسو كوبينا إن شاء الله تعالى لكن قفك مسلم كواحد لو بهنيه كتابك إلهي مركو أخرينيو أما تراويح الإمام كودة وتكنيو إن أصو أخرستو تفسير كآياتها سو أخرينيو si marka uu akhrinayo ugu tadabburo oo dhadhansado macaanida quraanku xambaarsan yahay ilaahay wuxuu amraya subhanahu wa ta'ala in ku tadabburno quraanka ilaahay wuxuu leeyahay afala yatadabbaruna alqur'ana
am calaa quluubin aqfaa maysan qur-aan ku tadabburayn maysan dhuuxayn maysan fahmayn qisaska ilaahay uu qur-aan ku sheegayo waxaa naloo kugu sheegay ilaahay wuxuu yidhi maa kaana xadiidan yuftara ma ahan hadal la iska been abuurtay cibar iyo cidooyin ayaa ku jira marka qur-aanka ha lagu tadabburo dikrigii ilaahay weeye kalaamkii ilaahay weeye wuu fadli badan yahay hala akhriyo hana lagu tadabburo intaas ayaanu xalaqadeena maantay ama caawa aan kusoo koobaynaa insha allahu tacaala wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu